أنا والسنة والجماعة عن غيب كسوها إلا لما كنا سجال كورتيدي وعن سوق هذه أورك وحلا إلى أن يسنحنا بالجاسين وعالو بها اللغة معه قضية السياسة أورك وأور ووح شخصيات سكنية ووح عن هدف فوق الهين ووح عن ذات كمال لجارسي كريم marka inaan aamino in dawladnimadu tahay mid loo baahan yahay ayana lagu midoobi karo maantana la haysto washida shacab inaan aamino loo baahan yahay qof kasta doorkeeda ka qaato midnimada isku xiraanta laga shaqeeyo hadii aan sidaas la yeelin dawladnimada aan rabno helimayno dadka dhusreeb degan oo halkan jooga oo maamulkan loo dhisay oo caasimada u tahay waxaan rabnaa in qof walba doorka uu leeyahay qaato in aan la isfiirin qoftii iyadoo tareenka ka dhacda nidaamka jira la qabso weyda hadee ayay u taala cid kasta oo joogta ay xuquuq ay leedahay inay fikirkeeda cabirto wixii saxana sheegto ee qaldan sheegto laakiin inay ka shaqayso wax amniga iyo maamulka shaqeynaya lidu ka ah wax la aqbali karo iyo wax nidaamka dawliga iyo deegaanka u fiicnida ma waxaan marka u baahnay taas inaan ku midoobno ciidaas rabtaa jeclaan kartaa ciidaas taageer kartaa laakiin waxa naga dhaxaya waa nabadgelyada iyo horumarka deegaanka ayadaa ka waa shaqeyno iikaada xirfado waxaan rabaa inaan ku daro waxaan ka maqlaa idaacadaha iyo dad sheegaya wadaadada ka baxay Dhuusamareeb oo shabaab ay imaanay qadiyadaas waxay u baahan tahay in la iska weydiiyo ما هي موقتها إن أنت أنا أقول سكسور شيء الناس حوالنا السوق وصلنا لك إمام مايان وعارفنا إيه شيء وسمرهم وهذا عاصمة قلب دوجا كون كم توان يعاودوا أو أحد ديجان كالسنة والجماعة ما أمره جرتي حلقي أي مدرسة سراكيش عيدا كوتوكتا هديه بوليس هديه نبوسجين هديه ملتري وعيد من السنة والجماعة الأقدمية waxaa jooga shacabkii shabaab la dagaalamay waxaa jooga maamulaadkii intaasi markay joogto waxaa nagu soo kordhay 12 beelood oo galmudug la yiraahdo oo dawladda dhistay waxaa nagu soo kordhay dawladda Soomaaliya oo tala iyo tusaale iyo tigaadna la kor taagan inagoo dayana oo dhowr degmada shabaab ka adkaanay maanta intaas aan haysano xagees aan naga soo galaa waxaan rabnaa khiyaaray runtii aan soo sheegno warka tuunka kurtaga la iska dhaaf macal maxamuud iyo shaakir laba wadaad oo halgan ka qayb ka ahaayeen halgankii la soo galay xamamaayo dadkii jooga way joogaan qayb ay ka ahaayeen la inkiri maayo laakiin hormuud ka maahayn dadkii hormuudka ka ah halganka waa joogaan waa ku maasanay waxay soo qabteen waan uga mahadcelinaynaa laakiin waxaan rabnaa inaan shacabka iyo ummadda caalamka midna la marhabaabin aan dhigin shabaabaa socda xagga u socda dadka shabaab la diray waa joogaan dawladda Soomaaliya joogta waxaan rajaynaynaa maamulka cusub la doortay iyo dadka deegaanka iyo galmudug oo gacmaha haysta inay u istaagaan in amniga deegaanka la sugo midka hadda ku sugan yahay la xoojiyo deegaanada maqan la xoreeyo waxaan rabaa halka inaan baaq u diro dawlad goboleedka galmudug oo dariska nahay waxaan rabnaa Puntland iga raalaada waxaan rabnaa khiyaaray Puntland wadadan darisnahay wadadan ehelnahay wadadan qaraabanahay galmudug waxay ka mudan tahay ixtiraam iyo darisnimo ixtiraamka iyo darisnimada aan kala mudan aan ku shaqeyno hadii aan taas kala weyno hadee nin kasta waxay ila tahay dadkiisa dalkiisa oo amir doona waxa weyn qaad doona hadii la hadlo wadaadada soo dhaweyseen kama xubin soo dhaweeya laakiin waxaan rabnaa inaadnan ka shaqeyn dhibaatada galmudug iyo tafaraaqa galmudug arintaas aan diraya baaqaas waxaan u jeedinayaa waa dadka madaxda shacabka Puntland waa shacab sharaf leh wax shida iyo shara on kamalaysan ma jirto shidadaas waxa wada waa dadka maamulka u kala dambeeyo reer Puntland dhismihii galmudug 2015 Cabdiwali gaasa u istaagay inuu galmudug aysan caagada ku istaagin ee burburto ilaahay fadhigiisa ilaahay diiday dadka galmudug oo isdifaaceen haddana daniya u taagan inuu ka shaqeeyo dhibaatada galmudug iyo kala furudeed dadka galmudugna way ku arkaan waana iska celinayaan aana u mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh